chama guddo dansa warro kenya tirre gutti nalcha chaman kun diranu fagessa amale laften jiresa chaman kun diranu fagessa atanaf no UDM fena nagai kamnu warri kenya nagai fenti kaputan kenna UDM chama kenna kun chaman kawarori kenya jirti tenna UDM fena no gargar Allah rabbi kenna. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحسنتين عارف ميديا وفرصتنا نسيسن هدانين بلا وحليرها مهات صلاة مجد بانين أولو لمي 2017 كي سنة السيد ومانتنا الجقادة لبيتو شرحان مقعي دستان إنشي مهات صلاة مجد واي وحان كسوجي دا لنع الداس كونسونسي waxaan hadda la shaqeyn rabaa insha Allah Governor Abdullahi Kabreta oo dibito yahay in aan marka dawladda 2022 oo Jer County aan sameeyay u baahan insha Allah marka tan aan bulshada kuma weelnaa ku baraarujinay waxa waaye in aan dad oo bulshada u shaqeeya aan noqon doono dad oo dhaqaalihii dawladda sidii loogu tirgalay u isticmaali doono dad oo contract ama qandaraas iska bixin iska qaadan doonin oo lacag been ah iyo shaqo aan la qaban lacagtooda lagu qaadan doonin ayaan sameeynaa marka taasna waxay ku dhici doontaa waqti badan baan oo senator hadda governor hay Dr. Abdullahi Kabreta oo siyaasad ku jiray oo waqti muddo 25 sano ka badan marka aad baan u fahansanahay asagana gacan fiican u ka qaadan doona nin hogaamiye fiican u noqon doona anigana nin oo ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha sidaan u ahay marka waxaan fahansanahay in oo shaqada managementka ama shaqadii laga shaqeynay county in aan aad u sameyn doono insha Allah oo u lahaan doona indho dheer iyo dhaga dheer si aan marka shilling kasta oo county-ga magaca bulshada ku imaana sida loogu baahan yahay loo isticmaalo taasoo keen doonta insha Allah in dhaqaala aan la dhuminin dhaqaalaan la dhuminina marka aad dhacdo tan dhacdo waxa waaye dhaqaalii in si fiican loo isticmaalo taasna waxay keen doontaa in oo bulshadii ka faa'iideystaan isbitaal fiican oo jiro oo daawo leh iskuul fiican oo carruurta dhiganayeen oo cilmi laga bixinayo bulshadii oo September national government loola dagaalamo oo lagu buuqo oo markasta September ka tagin dhaqaalihii loogu tirigalay awaaraha inay waqti loogu tirigal soo baxaan dhaqaalihii loogu tirigalay dadka cuuryaanada inay waqti fiican soo baxaan oo la caawiyo dhaqaalihii mamoodinka lagu garab istaagi lahaa ama garab gal looga dhigi lahaa in waqtigooda la soo bixiyo oo sidii loo isticmaalo marka taas kulli waxay isku imaan kartaa oo la qaban karaa marka ay dad ku takhasusay arrimaha ama qof ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha iyo sidii loo isticmaalo iyo koobtirkeeda iyo ilaalinteeda qof ku takhasusay oo fahansan in aad shaqadii xilkeed qaban kara marka saas ayaan u qasabtay ani iyo Dr. Abdullahi iskaashano arrinba aan waqti badan ku qaadanay oo ka hadalnay baayaheed wax oo si sahal ku imaanamo bilowdin baan ka hadlaynay insha Allah inaan la shaqeyna marka maantana diyaar ba ilaah ba noo suurtageliyay ilaah ka sokona adinka le bulshada reer Wajeer aan bariyayna oo leenahay fursadna siiya kuraha nagu caawiya garab noo noqda maanta bari baan garab noqonayna bulshada waxaan leeyahay diyaar baan nahay diyaaran inaan shaqeyna diyaaran inaan dhaqaalihiina aan ilaalina diyaaran inaan dhaqaalihiina si la rabo loo isticmaalo diyaaran inaan hoggaan fiican oo lagu nastaan siina marka fadlan adinkana garabna siiya kuraan urida insha Allah si aan bulshada u dhisno siyaasadda anaga waxay ku dhisan tahay Wajeer oo midnimo Wajeer oo wax qaybsi leh Wajeer oo Wajeer ahaan isku arkeen anagoo isku arkeen qabiil Wajeer oo dad wax la qabsan kara aanahani ayay ku dhisan tahay taayna waxa waaye kali bulshada wax u qaba mooyaane qabiil fulaan san garab ku si qabiil fulaan kan ku bahdil taayna mooho
marka waqti badan ayaa bulsho soo digaaleen waqti badan ayaa dhiig la galay marka hadda waxaan u baahanay inaan iskaashano oo dad isnacbaa aan sakeena dad isnacbaa walaalo ka dhigna dad isnacbaa aan jaga qaybsana si aan marka in aan tusno bulshadu digaalkii aan soo dhaafnay aan tirtirno oon si walaal u shaqaysano oon garab is noqono si aan ku keena faa'iido bulshada wada deeqdo wallaahi wajeer qof ay xorinta ma laho dad baa iska dhacsiiyay dad baa baroko ka noqday oo ku barokaysta oo magacaas wax dad ugu dishto oo magacaas dad ku maalo oo magacaas dadka shafka u qaracdo wajeer cid ay leedahay malaha maanta daa wajeer qof iska leeyahay dhibaatada maanta joogta ma joogtiin marka waxaan leeyahay wajeer adinka iska leh wajeer gacantiina ku jirtaa wajeer ad qof in kugu hanjamin oo iska leeyahay shilinkii imaanana qof shaqsi kuma imaana wuxuu ku imaanaa bulshada reer wajeer oo giddi ah oo isbahaysan marka waxaan leeyahay wajeer waxa horinta ma laho annagana cid aan ugu baahannahay in ay na qaabilaan oo ina dhahaan wajeer annaga haysanee waa in kala hadalnaa ka cotaga ma jirto wajeer reer wajeer iskale reer wajeer ayaa degan reer wajeer ayaa xoogmaal ka haysta reer wajeer ayaa go-aan ka gaari kara qofkii madax u noqonaya qofka madax u noqonayn marka maanta waxaan leeyahay bulshada kuma haweylinaya wajeer horumarkeeda gacantiina ku xiran yahay haddaad maanta qof kale aada ku faanay in loo dhiibo waa ayaan dara laakiin tana aaminsana waxaa reer wajeer horumarkeeda gacanta reer wajeer ay ku jirtaa qof shaqsi ah kuma jirto marka waxaana leeyahay waad mahadsantiin reer wajeer hana la garab qabta annaga dad uma xirnin reer wajeer ayaan u shaqogeli rabnaa insha allah wallaahi maalinta hore sida ay bulshada reer wajeer og yihiin qol kasta guri kasta dukaan kasta suuq kasta meel kasta ayaan tagay kuru baryaayay shaqo yar ma ahayn aad bay umahadsan yihiin 19 kuna kuraysiiyeen senator baan u istaagana u sharaxnaa maantana deputy governor u sharaxnay sidii iyo si ka xoog badan ayaan ku imaan doonaa insha allah baryada waa sidii reer wajeer waa dadkii waa dadaan jeclahay waa dad jecel wiligiin madaxa ay saarantiin marka waxaan leeyahay sida aan shalay kugu imaanay ayaan maanta kugu imaanayaa sidaan shalay kugu baahnaa maanta kugu baahnahay marka fadlan caawitaankiina u baahnay kuriina u baahnay maanta garab qabta berigu nasta insha allah waa fahansanahay waa aaminsanahay ninka governor hadda aan oon deputy ahay waa nin takhtar ah mutacallin ah oo ku takhasusay arrimaha isbitaalka marka wajeer dhibaato isbitaal baa ka jirta qofkii fahansan oo takhtar ayaa wax ka qaban kara marka waxaan leeyahay aniga nin hadda maanta oo takhtarnimadiisana ganacsi ka sameeya ama ganacsi ogolamaho waa nin in uu bannaanka u imaano inuu bulsho wax u qabto marka takhasuskiisana maanta bulshada ay wax qabanaya nin arkaya meesha ay wax ka qalab yihiin in meesha ay wax laga toosin kara ayuu noqonayaa anna marka insha allah si aan ugu takhasusi arrimaha dhaqaalaha nin aad iyo aad ilaalo u ahaya shilin kasta meesha ku baxaya ayaa noqonaya tan kalena anaga siduu governor hadda ku hor sheegay countiga ward development fundka waa badinaynaa ilaa iyo 100 milyan baa ka dhigayna insha allah marka taasna wax oo maanta qof gacanta loo gelinayo moo arrin bulsho ay ka mid noqoto arrin stakeholders ku imaanaan oo go-aan laga gaaro oo wixii la qabanayo wax ay bulsho u baahanta ay yihiin mooyaane wax qof shaqsi ahaan contract qandaraas lagu siinaa ay noqonin ayaan ku talo jirnaa ayaan hagaajin doonaa marka arrimaha kale oo in aan haraka sameyno ayaa waxaa waaye in shilin kasta oo dadka bulshada oo curyaanta in lacagtooda haraka la soo daayo ilmaha basri fankooda haraka la soo daayo dhaqaalaha loogu tirigalay abaaraha in haraka la soo daayo dhaqaalaha loogu tirigalay dhalinyarada in haraka la soo daayo dhaqaalaha loogu tirigalay maamuudinka in ay ku shaqaystaan in haraka la soo daayo marka wax kasta marka waqtigooda la soo daayo ayay faa'iido leeyihiin marka anagana waxaan si kale oo kordhinaynaa in insha allah isbitaal fiican
akhris fiican jid fiican security wajeer u buuxdo inaan sameyno u baahan insha Allah taasna garabkiina adinkaan aan la joognaa maanta adinka in ka baryayna gacantiina ku jirta ilaahay ka suko insha Allah xikmadda nasiya anagana anugu waarisan insha Allah maatanid